barasaabka gobolka Maroodi Jeex iyo duqa caasimadda Hargeysa oo si wada jira shir jaraa'id u qabtay ayaa waxa ay ka hadleen dhaawicii keenay ciyaartii maanta muranku ka dhashay ee u dhaxaysay xulalka Daadmareed iyo waliba Hawd. kubaddu waa barcad iyo barmadow ciyaarana waxaan ugu talagalay isdhexgalka ummadda. tiim kastaba uu badin karaa, tiim kastana waa laga badin karaa. waxaan leeyahay maanta rabshadii dhacay intii ku dhaawacantay ilaahay caafimaad ha siiyo. ilaa 10 qof dhaawacaya askar badan oo booliiska waxbay gaadheen. waxaan leeyahay xamaasaddu inayna gaarsiin kubadda uma ku ekaato. ma aha inaga oo kubad ciyaarayna inaynu ciidankeennii dhibno oo dhaawac baa ka soo gaadhay ciidanka booliiska, dadweynihii dhaawacu ka gaadhay iyo askartii dhaawacu soo gaadhayba. ilaahay waxaan uga baryaynaa in ilaahay subxaana watacaala u yasiro oo u boogadhago. waxaasoo kalena waxaanu dadweynaha ku wacyigelinaa inaanay dub u dhicin. dhinaca kale ciyaarta berri ayay fariin ka direen labada mas'uul. run ahaantii waxaan halkan ka soo jeedin doonaa mar labaad beritoole waxaa la farayaa labada naadi ee ciyaaraya labadooda kooxood oo basaskooga wata oo qura oonan taageerayaashu la socon ayaa iman doona muxuu ahaa taliska bilayska. halkaas ay taageerayaasha qura iyo madaxda qura gawaadhi ku geli doonta. gawaadhida ka tegaysa dhinaca galbeed waxay dhigan doonaan gawaadhida halkii warshada caanaha amba xerada Birjeex iyo wixii ka galbeedeeya. dhinaca barina gawaadhidu waxay istaagi doonaan goolada Xariir wixii ka bariyeeyay istaagi doonaan. dhinaca galbeedna waxay istaagi doonaan gawaadhidu oo dhigan doonaan halka warshadii caanaha amba xerada Birjeex galbeedkeeda. taageerayaashu iyagoo lugeynaya geli doonaan. taageerayaasha gobolka Gabiley waxay fadhiisan doonaan taarbuunka galbeed, waxay fadhiisan doonaan dhinaca xigta Hawd amba koonfur dhinaca xigta. taageerayaasha gobolka Maroodi Jeexna waxay fadhiisan doonaan VIP da wixii waqooyi ka xiga. waxayna marka la baxaya ka bixi doonaan kadinka waqooyi. dhinaca taageerayaasha fadhiisanaya dhinaca bari, dhinaca koonfureed waxaa fadhiisan doona taageerayaasha Gabiley, dhinaca waqooyina waxaa fadhiisan doona taageerayaasha gobolka Maroodi Jeex. berito waxaa wada ciyaaraya gobolka Gabiley iyo gobolka Maroodi Jeex. dhammaan inta ka soo qayb galaysa iyo taageerayaasha gobolada waxaan furaynaa inay ilaaliyaan nidaamka iyo anshaxa iyo kala dambeynta. in la ixtiraamo ciidamada booliiska oo runtii ilaalinaya nabadgelyada qaranka oo dhan. ceeb bay nagu tahay iyadoo ciyaarihii wareegyadii ugu dambeeyay ay marayaan in ay rabshado iyo runtii waxaan loo baahnayn ka dhacaan. sidii shalay toba aanu sheegnay waxaanu mar labaad ku celinaynaa inay taageerayaashu ilaaliyaan nidaamka iyo anshaxa, waayo ciyaaraha waxaynu u qabanay in dhallinyaradu isku barato, in isu dhexgal iyo wanaag iyo runtii uu ka kordho, laakiin umaynaan qabanin rabshado iyo runtii ay ka dhacaan wax nabadgelyadana inaga xumeeyaa. waxa kaloo aanu faraynaa dadka ka soo qayb galaya ciyaarta ee daawanaya inay gaadiidka baarkinada soo dhigtaan. lama ogola wax gaadiida oo agagaarka garoonka la soo dhigo. qof waliba baarkin buu soo dhiganaya gaadhigiisa, wuu soo lugaynayaa. gaadiidka ay la socdaan labada kooxood iyo gaadiidka madaxda oo wadato ayuunbaa garoonka iman doona. dadweynuhu qof waliba baarkin buu gaadhigiisa soo dhiganayaa. waxaanu ku celinaynaa mar labaad aynu ilaalino anshaxa iyo wanaag runtii wanaagga aynu u qabanay ciyaaraha inay dhallinyarada u kala korodhaan isbarasho iyo kalgacal. Batri Koosar Maxamuud, Telefishinka Sahan.